toban cashir buu ahaa waanu ka soo gudubnay sanadkan bilowgiisii waxaa noogu xiga tababarka macalinimada oo runtii isbedel badan aanu dareennay waan kusoo noqonay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى ونحسن عاوة تاريخ دوا شالي لبعتنكي بيشكي ساقالات لبعض كل إيو كوي لابتنكا وحنو تشوفنا ريستورانت السفانة اللي لهذو وحالكو حيسوي ميد واردين صوماليات معلمين صوماليات و تريني كو قاعتو كقرن شبيي TOT PhD Center TOT مقعين وحوية teacher training tababarka macallinka iyo macallimiinta waxaad u tababaranaysaa inaad tahay macallin ana haddana waxaad samayn kartaa oo kale lagu sii tababaraya inaad si aad macallimiin u soo saari lahayd barnaamijkan runtii waa barnaamij aad u ballaaran qaybo badan buu leeyahay markaan anagu qaadanay barnaamijkan tababarka macallimiinta waxaa noo soo baxay waxbarashada carruurta sida wax loo baro aad iyo aad buu gaab ugu dhaxeeyaa waxaan jecelnahay inaanu ka faa'iidno ummadeennu ay ka faa'iidaan meesha laga hormaray waa macallinnimada dadku waxa ay raadinayaan dadku waxa ay doonayaan ee ugu weyn eenu ogaanay ee qabyadaynaga ah waa qaabka ilmaha wax loogu sheego qaabka ilmaha wax loo baro iyo waxaana kaloo noogu jiray sida loo hadla ee fagaara ka hadalka loo sameeyo fagaara ka hadalka ma aanan moodanin loo baahan yahay laakiin waxaa noo soo baxay hadalka iyagu inaanu ahayn xidhiidh markaad hadlayso waxaa loo baahan yahay inaad boynti garayso hadalka inaad koobto inaad isku daydo qofki inuu ku fahmo inaad si fiican oon caajis lahayn oon khilaaf lahayn oon degdeg lahayn aad u hadasho runtii waxyaalo badan buu barnaamijkan isugu dhex jiraa waxaan jeclaan lahaa hadal hama lagama buuxsho inaad ka soo wardoontaan qaybo kalu leeyahay oo la yidhaahdo hogaaminta iyo barbaarinta nafta ubadkaa la barbaariya naftaa la barbaarinaya barbaarinta nafta waxaa kaloo soo socda qaybo kaloo ballaaran oo fara badan sida guurka oo kale iyo noocyo badan barnaamijkan wuxuu dhex gelayaa qaran ma aha keliya waalid iyo macallin waayo bulshadii dhammayd ayuu ku wajahan yahay intaasaan kusoo koobi lahaa waad mahadsantahay TOT PhD Center buuggan oo qayb ka yahay waa Soomaaliyeed halkan isugu yimid garaadso intaadan guursan horta anagu garaadsanay baan ku guursanay baan ku dhex garaadsanay guurkii waxaan kolley haddana lamaanaha wehelka lamaanaha aan ku sii qoran hagaha guurdoonka iyo wehelka lamaanaha guurku waa shay qaali ah kana horeeyaan isla qaranka وانا باهنا مرحبا in xoog la saaro hadana alxamdulillaah rabbil caalamiin iskuulada dugsiga hoose dhexe xataa inuu ku dhigto beesay si qofka loo sii hago marka waxay sidii meel arday runtii ka qalin jabinaysay traininka macallimada TOT magaciisa la magac baxay wax badan oo soo wada hadlay walaalo badan baa halkan jooga taariikhdu waa 25 bishii 9 2022 waxaa kaloo isna jiro kamida barnaamijka PhD buuggan oo qoray ustaadku in badan hadda wareegaya huwana taariikh cajiiba iyo waqti cajiiba ma sha Allah ahayd in guurku mar hore oo sidan oo kale u soo caamuxo ama in badan la soo hadal qaado qaran hortii qoyska ee in badan la barto imika insha Allah bidmi rahmaan qabyada waa laga tagi doonaa kelmaddan soo oran lahaa hadii aad guyaal gabay ku gaarto idaf laga ma gaaro adduun gadmanayay أنا وحن قرأت كي نقول كهذا في كيس جد كو مركب وبربط قاعد ور مايو قاعد كجابس إنها جرسيبة جودة وقوس كشيء هذا مياه قلب ميل قاري قولي ليس لا هذه الجوان قوني سعد كودة جه دودة واحد مودي سأل وتكري جذب لي قرواقسي قرقار على مال كودة مين ولا بروح وقعنا يقولوه دلينه waxay guux la oolaan garkiya gaada ruuxankooda ilma gabaxay qaar bay indhuhu gacalo horaan allow geeri naga hay markay gocotay laabtoodu markii goolkii uu shabaga galay gurigii uu taagmay maxaa loo gariifaa wixii shalay la goobayay ما شاء الله ma shalaan garadlii ahayn gacan la oogeeni mise gartaya geeraarku waa guurka hadafkiisa gedda kow garaadkaaga hadal geesinimo weeye
waxaad gocosho haysiyo waxaad godaba moodayso abidkoodba gacalaan isbaran isma gargaaraan waxaan u malaynayaa barashadii halkan ay ku jirtaa inay gacalku isbartaan iyo in aqoon la yeesho ay dadku garwaaqsi ku heli karaan wanaagsantii ما شاء الله ما شاء الله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام الأمان ماشي سوق قلي يوم صوماليين ملك ساجوتين با waxaan aad u mahadsan casho sharafkan caawada dadka noo sameeyay iyo barnaamijkii quruxda badnaa ee soo qaadanay ee ahaa sida loo tarbiyeeyo macallimiinta waxa ay noqon karaan iyo inta noocay macalinku u qaybsamo iyo qaabkii wax loo bari jiray iyo waxbarashada hadda wax la baro iyo tii hore oo taqaaliidka ahayd oo dhaqanka ahayd iyo kala duwanaanshaha ay kala duwan tahay wax badan aan ka baranay oo ah in uu qofka yahay waxbarashada markay taqaaliid tahay dhaqanka dadka la baro inuu ciyaalkii waxay si cunfi ah lagu baro ama ah si dirqis ah ama dil iyo dagaal iyo hariifo oo cunug inuu ku barto ama qof kasta wax la barayo haddii uu weyn yahay xataa in caay loogu daro iyo in maanta dhan in canaan iyo ciqaab hadduu yarihana jir ahaan iyo dil lagu baro marka waxay ahayd wax aan annaga iska dhaadhicino oo islaamkana salna ku lahayn raadna ku lahayn laakiin ay tahay dhaqan dugsiyada inta badan ciyaalka aad markay ka soo baxaan xitaa quraanka wax badan kama istafiidi jirin maxaa yeelay quraankaas wuxuu ku bartay waalidka oo rabo dartiis asagoon fahansaneyn waxa uu baranayo quraanka waxa uu yahay asagoon macalinka u sheegin waxaan xasuustaa macalinkayga maalin kasta oo tago waa weydii jiray waxa aan baranayo maxay yihiin maalmaha ka mid suuratu shucuraa waxaa ku jiro idaa badashtum jabbaariin awas yaanga waa istaagay macalinka waan ku dhaha waxaan badash la siiyaa maxay tahay macalin ficlan ayaga dhibaato badan kumay haynin oo qur-aanka in la baro macalin ahaan loo tarbiyeeyey miininka asagaba ma aqoon laakiin aniga waxaa muhiim ii lahayd in waxaan aan baranayo ee wax ii saamey ama wax nolosha wax igu sameyso oo aanan aysan u noqon in quraan la barto oo la barakaysto oo kitaabka maanta dhan kilkisha la gashto dhulka laga ilaaliyo la dhunkoodo laakiin ilaahay uu sabab u keenay kalaamullaahi waa bas kalaamullaahi waa ilaahay muxuu ka rabaa hadalkiisa marka waa waxyaabo badan oo falsafo ah oo philosophically haddii loo fikiro cunugga qof kasta isweydiinayo qof kasta oo dhasho waa haystaa falsafo uu ku dhasho leeyahay insaanka dhan xayawaanka wuxuu kaga bedelan yahay falsafo insaanka uu ku dhashaa jiro oo wax isweydiin iyo wax warcelin ah wax isweydiina waxaan maxaa u sameynay fast place qof kasta oo insaan isweydiinayo marka hadee macna u sameynay wax uu sameynayo qofku u sameynayo asaga ku dhib marka qofku u sameynayo loo sameeyo marka waxay ahayd waxbarasho dhaqan iyo taqaaliid ah oo cunfi lagu barto dugsiyadana wax laga faa'iidin inta badan oo waliba dadka quraanka xifdisan oo xufaada ay dadka ugu dhibka badan ay yihiin oo aan waxna quraanka aysan macna u sameyn laana macnihi quraanka ka maqan iyo muhiimadda quraanka oo lahay iyo ilaahay in uu talaga in koonka lagu maamulo marka ka dhaqan ahaan Soomaali ahaan barnaamijka la yiraahdo in cunf wax la isku baro iyo cabsi wax la isku baro wax qaldan inay ahayd inaan isfahansiino wax badan ka fahanna muhiim ay tahay ilaa ay hadda waan taagana ilaahay ka cabsa aan ka bilaabaynaa cabsida iyo yaa horeeyo jaceelka yaa wax tar badan yaa wax qabad badan ficlan jaceelka qofka markuu qofka jecel yahay ama jaceyl uu jiro between us waa ku soo degdega waa ku rabaa waa ku adeeca waa ku dhageysana waxaan ka ilaalinaa wax kasta oo dhibaato keeni karo I will respect you always waxaan rabaa in adigu ku soo dhawaado لأن واقع جعلها إلهي سبحانه وتعالى عليه أدون كيجا مركو يجعله وحو يسوع دوادا مركو تاك يسوع دوادا شبري أنا جن وأسوع دوادا إلا أن كان نقضه دقيه سئي أرجي سئي أنا أسجن أن كان نقضه جعل كاسا وحكيني كرو إن خوفك أو فهم يجعل يقرأ بتان أو وحي أوصى ما يتضوع صلاة هدو دكنا وكدو كذا خشوع قرآن كدو أخرنا يلذ يا معان إلى هاي لكن قرآنك هدي أن يسالدي وحد هدي ما تدرن عبسي يا خشية ما تدرن قفك مرك خشية وحنك قارن قليل عبسي محين وكنت إن إنسان كلاد يقبوا من كهيني وحن دكنا إن نقطي تقاليد يا عادة يسكن دحق شيء عادة يا عبادة مرة ده عادة دي عبادة نسكن دحق شيء إلهي كعب دين ويراد وحكلام كلها هوا إلهي كعب بدل أنت اللي قليه لا إله رجع له وكحشو كلمة داس إنسان لو أديكسو إلهي جعلوه
oo inaad caasisa ka xisho macno badan ay qofku u sameynaysaa wuu ku fikiri lahaa laakiin ilaahay ka cabso marka war ilaahay ciyaarka yarkaa markaa u sheeg kelimadaas weligay ma jus gareeyo laana ilaahay maalin marka gabadha waxa ku tiraa ilaahay ka cabso qof cunugan markaas ku dhaa ilaahay is scary ilaahay wax laga cabsado waa monster miya wax laga cabsado oo argagax miya marka inuu wixii inta argagax loo tusi lahaa ilaahay wuu ku jecel yahay dhinaca jecelka loo badiyo wax badan dadka marka kaloos ilaahay ku noqon lahaayeen diinti fahmi lahaayeen marka dhaqanka cilmiga ah in dadka cunfi lagu baro waa midka maanta ilaa hadda khashadii iyo iska qoofkii nagu abuuray qofkii inuusanba ilaahay jecleen oo wuxuu sameeyay inaa wajadna aabbaana aabe salaada lagu dili jiray dilowgiya taagan quraanka waa la isku dili jiray dilowgiya taagan marka wixii fiir inay tahay aysan love jirin love hadoo jirana moo adduunka dhan waxaa hagaagi lahaa cilaaqada baynak wa bayna allah way hagaagi lahayd laana jacayl wax u sameeyay qofka marka wax jacayl u sameeyay iyo qof marka booskaaga ka soo qaad marka aad cilaaqo wanaagsan la leedahay meel ka shaqeynaysid qofkaas booska ama managerka ah cilaaqada in ka dhaxaysa cilaaqa wadiya iyo isfahan haday tahay waxa sameeyay comfortable asna kalsooni ku qabaa adigana kalsooni ku qabtaa wa imma markii oo asaga aad ka cabsano jabbaar iyo qaaba iyo dil iyo asaga dhan qof ugu jirana adigana argagax ku jira hadoo imaado ilmaha yarka guriga marka soo gashay xataa wax markay sameeyaan markay ka cabsanaa wax dhan way isku dhaxyaacinayaan waxay isku dhaxyaacinayaan laana ina badshi ku sameeysid ina ciqaabti ina cadaabti ka baqayaan laakiin hadii ku ogii ina friendly saaxiibta wanaag aad sheegaysid waxa u sheegaysidna ay tahay wax ka dhasho cilaaqo idinka dhexdiina oo wanaag iyo cabsi aan jirin iyo taras yaalo wuxuu sameeyna waa honest runoo kuu sheegaa wuxuu haleeyo wuu kuu sheegaa marka wixii istaraakubay marka camalka la sameynayo cilmiga dadka sida loo baray iyo ilaahayga xataa abuurtay oo koonkan u keenay inay caabudaan qaabkii loogu talagalay maahan qaab kala dadkii loo baray ilaahay qaabka oo u rabay maahan qaab kala dadkii loo baray marka waxaa dhamaaday cilaaqadii wanaagsaneed oo wudiga ah oo ilaahay dadku ugu soo dhawaanay waxaan sameeynaa dhan waa caado walaysa cibaada caadadii cibaadadiina haday isku dhaxayacdo ilaahay dhan iyo heelo kale male maanta dhan fiirka ku haa iyo cabsida qofka inuu aakhira ka cabsado waxa keenaa markuu ilaahay jeclaado inuu diinta ilaahay ku dhaqmo waxa keenaa markuu ilaahay jeclaado laakiin ilaahay doo ka cabsado wax kastoo gadaal ka qaso uu sameeynaa laana ilaahay Allah na gaarsiiyo bistaagsiya cadaabti moo Allah na gaarsiiyo because waxa ku yaraana iimaanka jaceelka markuu baxo iimaanka yaraana kalsoonida yaraana waxa baa yaraana insha Allah in waxaan rajeynaa barnaamijka aan qaadanay barnaamij aad manfac u leeyahay waxyaabo badan ka faa'iido ma sha Allah مثلا waxaan ka faa'iido waxa lahay qofka marka uu wax barto asaga oo tadawuc iyo rabitaan iyo raqba ay ku jirto wixii inuu u baranayo wixii inuu benefitkiisa arkaayo inuu wixii wuxuu ka goran kara arkaayo wixii inuu arkaayo wax ku oola asaga naftiisa anfaco ilmihiisa anfaco mujtamac anfaco hooyadii haday barata qaabka ilmaha loola tacaamulo ee macallimada training hooyadu waa teacher لأنه الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق المو نفسه وعرقي أو مد إلهي أغطى لقبلوك المسؤول خلافة كأنه قالها خلافة في الأرض إلهي أغنى قالها وأرلدها هجاجيلها ما تغير كأنه مسؤول كمان قالها اسم الدنيان مسوق احنا دباتنا ومدعين أدونك إلهي أنه أغطى لقال إنه إلهي ده أن كل قانون diintiisa jeclaano asaga maxabbi iyo mawdo iyo tiqa nagala dhaxayso ilaahay kalsooni iyo tawakkul waxa soo dhan isoo simaaday aqeedadaadi 100% ay imaa ilaahay hadaa jeclaatid bedelan ilaahay inta ka cabsatid ilaahay ka cabsadeen qofka ilaahay jeclaawde ka xisho inuu aad يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله waxa imaanayo qofka inuu iska ilaaliyo badshadiisi oo sajceelkiisi oo ka yaraado ilaahay ma jecleen jaceelka ilaahay yaraadana waxa keenay dhibaatada maanta aan ku jirno iyo qaabkan wax u barayno cunfiga inaan iska dhaafno nafteeda aan ka bilaabo naf kasto ay ku qof kasta naftiisa ku hagaajiyo bedelan intuu cabsi dareemi lahay ilaahay jaceelkiisa uu u xiiso aan qofka markuu khaliilkiisa yahay oo qofka jaceyl u qabo qofku uu u xiisaa xataa salaadiya u xiisay quraankiya u xiisay ilaahay inuu kula hadlo inaa la hadashaa u xiisay marka waxa soo dhan ayaa waxa naga hor istaagay cabsidii iyo qajaha iyo jafaafkii iyo qaleelkii iyo rafaadkii marka dhaqankii taqaaliidkii qaldaneed oo wax lagu bari jiray inaan bedelno maadaama aan qarbiga joogno qaabka wax barayaan mawadiga iyo kalgacalka iyo qofka markuu wax jeclaado hooyada sasadee lagu tarbiyeeyo oo ilmihiisa macalinka wax barayo oo ku tarbiyeeyo waxaa soo baxay ilmo ilaahay iyaga cilaaqadoodu wanaagsan tahay cilaaqada ilaahay hadii hagaagdan cilaaqada waxa hagaagayo waalidka iyo ilmihi hagaagayo waxa hagaagaya cilaaqadii mujtamac oo la lahaay
ilaahay waxaan ka bayanaa kuwo wax soo saara ilaahay inaga dhigo waxay maqlaan ka faa'iido hadalkay inta soo kusoo gabagabeeyna alladina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna ahsana ulaa'ika alladina hadaahum allah ilaahay kuwo waxay maqlaan ku dhaqmo waxay bartaan dhaqan geliyo ummadana u faa'iideeyo naftoodan ka faa'iido waxay bartaan allah inaga dhigo waana salaamu calaykum جزاكم الله خيرا واحسن اليك يا بواشن ما سنتهاي waxay ka hadashay runtii muxaadaro kooban erey kooban oo wanaagsan qof walbaana wuxuu ilaahay ka baryo helaaye caawa waxay ka hadashay dadka in jacaylka lagu wacdiyo ilaahay baa ku jeclaanaya maasha allah haddii aad iska dayso dhibka waa lagu jeclaanayaa يعني قيمتي جعيل كي مرتين راد إذا أنت أري كلا مركا أري أديكس ويان معلمات وحكي هذا الشيء ولا شيء سعيدة شقيسة إن شاء الله أد بنو فرح سنة يرون تقلب كاي تابتي أو حنرد نسكن من تاريخ شيء لا تنكي بشي سجال هذا لبض كوني كوي لا تنكا وحنفردنا هوديل كسفانا دوري يطهم قفبان النهاي إن بدلنا رونتي سيستمك عاو سامحي وياي لندن waxaa ka jira maaragtay traffic jam marka insha Allah waan rajaynaynaa ardayda kale inay noo yimaadaan waxaan rabaa inaan soo koobo waxaan isugu nimid halkan waxaan qaadanay training yar oo kooban runtii oo muddo yar socday laakiin u eg inuu soconayo sanad iyo ka badan waxbarasho wanaagsan wax badan naga bedeshay wax badan noo iftiimisay sidii wax loo soo bartay iyo qaabkan wax soo baranay runtii waxaan ku faraxsanahay inaanu la kulannay macallimiintan qiimaha badan ustaadadan labada ah ee ku nool waddanka Mareykanka wax wanaagsan oo aad u fiican bay noo soo gudbiyeen in badanna qalbigayga degay aanu isleenahay kala shaqeeya wax badan baahida ummadda Soomaaliyeedna aan oran karino way ka bixi karaan daliya dibad barnaamijyo hore waan qaatay barnaamijyo hore iyagu wadeen waan qaatay laakiin barnaamijkan la yiraahdo TOT teacher training-ka tababarka macallinimada iyo tababarka macallimiinta in badan wuxuu i tusayaa inaan dalkii hooyo tago ismaan oranin dalkii hooyo tag hadda ismaan oranin dawladda u tag ismaan oranin rag laakiin imika madaxweynaha u sareeya Soomaalida dhulkeena Soomaaliyeed dadka ku nool ee maamula ee madaxda sare ah ee culimaadiinka ee abwaanada ee garanaysa macallimiinta ah rag iyo dumarba intii aqoon leh ama rabta inay ummadda wax ka bedesho ilaa aqoon baa la isku bedelaayay maanta qalbigayga barnaamijkan wuxuu geliyay inayna cabsi igu jirin li'annahu waxaan arkay meesha kaliya ee loo dhimanayaa inay tahay aqoonta haddii aqoon la helo dadku way qaboobayaan haddii aqoon la helo nabad baa la helayaa haddii aqoon la helo qabiilkaa laga tegayaa haddii aqoon la helo biidni raxmaan dadkii jannada ku arooraynu noqonaynaa aad baad u mahadsantihiin jazaakum allah khayr markay ka hadashay sidii ilaahay loo jeclaan lahaa iyo jacaylka ilaahay isagaa ka hadlay wuxuuna uga hadlay may hadalkiisa saciida xoogaa sii qurxinaya walaashin way qurxisay yani waxaan ka wadayaa nabiga cali ilaahay jacaylkiisa sidii dadka loo bari lahaa ilaahay jacaylkiisa waxaa laga baran karaa ilaahay dadka isagaa isbaray kitaabka ilaahay meesha dadka lagu dili jiray ama lagu dilo hadeer waxaa ka fiican qofka in macnihiisa la baro innaga waxaan dadka ku bogaadinayaa mar walbana idin leeyahay qur-aanka tafsiirkiisa ha la barto hana loo barto in lagu dhaqmo ilaahay qur-aanku waa qofkii raba inuu ilaahay hadalkiisa ilaahay la hadlo waa in qur-aankiisa uu barto micnihiisa xifdigiisa iyo tajwiidkiisa iyo waayahan waa lagu dadaalaa laakiin waxaa ka horeeya oo macnaha dhanba qur-aanku isugu soo aruuraya waa inaad qur-aanka macnihiisa barato danna aad la timaado dhaqankiisa marka jacaylka ilaahay iyo bilaadan sidii loola dhaqmi lahaa iyo rasuul calayhi salaatu wasalaam si lagu raaci lahaa wax walba ilaahay kitaabkiisa ku sheegay kitaabka ilaahay tafsiirkiisa ha la barto dhaqankiisana ha lala yimaado dhib oo dhan wayna daynayaa insha allah intaas kaliya ku darsanayaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ummadda muslimiinta ah meel kastoo joogtaan dunida dacaladeeda salaanta islaamkaan idinku salaamay marka ay soo gaadho cajaladaydaasi ilaahay idinkii waxaan idinka baryayaa inaad nabad qabtaan dhammaantiin caawa habeen iiga duwan habeenada kale caawa waxaan la joogaa dad
isu xilqaamay isu taagga ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto macallimiin culimo ahludiin shuyuuq iskugu timi maanta halkan oo macallimiin ah oo tababar loo siinaya sida iyagu wax u bari lahaayeen dadka waayo waxa la ogaaday in haddii aanay macallimiintu iyaga laftirkoodu tababar qabin sida loola dhaqmo carruurta dadka waaweyn marka ay wax barayaan aanay waxbarashadiin meel fog gaadhayn sida ay ka dhawaajiyeen hablaha culimada ahaa ee ka hadlayay halkan oo ay sheegeen in ay tahay in uu macallinku fahansiiyo haddii uu diini dhigayo laftirkeeda inuu ilaahay jacaylkiisa ka horreysiiyo cabsida waayo cabsi inaan waxba lagu barin karin ayay caddeeyeen oo culimada halkan iskugu timi kadaalik haddii ay maadi dhigayaan macallimiintu waxaa caddaatay iyada laftirkeeda haddii aan tacliintii la jeclaysiinin in aad waxaad ku cuntid oo kale ilmihii inuu wax ku cunayo in kale inuu gaadhiba laakiin waa wax adiga maskaxdaada kula dhimanaya kula noolaanaya cilmigu weligaa yaalahaa waa meed aad la dhimanayso in cilmigii la jeclaysiiyey maadadii uu dhiganayo qofku inuu jeclaado ayaa ka horreysa inuu barto marka shahaadooyin baa halkan lagu guddoonsiinaya maasha allah culimada halkaa iskugu timi ma yarayn dumar baan maanta u badnayn laakiin meel kastaba dunida dacladeeda way ka joogaan meelo kala duwan bay raggiina ku qaadanayeen anigu qolada hablaha macallimiinta ah iyaan la joogay waxaa kasoo qayb galay aqoon-yahano aad u badan oo fara badan oo xagga caafimaadka ka socda kuwa ka socda macallimiin ah kuwa shicibka ka socda looma kala hadhin loomana kala yaraysan maasha allah ilaahay idankii waxaan ka rajaynayaa in ay noqoto waxbarashadaasi mid aan nagu soo noqon programkan waxaa la yidhahdaa TOT oo waa training macallinimo loo galo marka macallinkiiba isagii lasii tababaraya maasha allah waa markii igu horreysay ee aan macallin isagii lasii tababarayo xaflad loo qabtay ka qayb galo oo ka qalin jabiyey isagii oo tababar lasii siinaya si uu u gudbiyo wixii uu bartay waayo wax waad baran kartaa laakiin gudbinta ayaa kasii muhiimsan sida aad u gudbinaysaa ma si xasilooniya ma si cabsiya ma si aad dadka nacsiinaysa cilmigiiba waayo haddii ardaygii aad wax u dhigaysay kaa cabsoonayo waxa laga yaabaa inaanu waxba kaa dhagaysanin laakiin haddii aad wax jeclaysiiso oo jacayl aad ugu abuurto inay tacliintu muhiim tahay laakiin uu tacliintii jeclaado waxa laga yaabaa inay wax badan ka bedesho marka maanta ilaahay waxaan ka baryayaa in iyagana uu ku anfaco in badan oo kalena traininkan gasho wiilashaas traininka dhiga oo America iyo Australia dunida dacaladeeda kala jooga Yurub maasha allah iyagana ilaahay waxaan uga rajaynayaa in ay wanaaga ay walaalahood sila garab taageen iyaga laftirkooda in ilaahay iyagana jazaa ka siiyo intii baratay ee halkaa ka qayb gashayna kuwa ilaahay ku anfaco ee ku dabaqa waxa ay dhigayaan ilaahay ka dhigo intii halkan ka hadashay maanta waxay ka wada dhawaajiyeen in cilmiga la isjeclaysiiyo oo aan laga dhigin wax cabsiya oo qofka bini'aadmigii lagu kadeedo oo kalif oo kala laga dhigo marka fa inna ma'al usri yusran mar walba yusran in wax lagu barto iyo ilaahay quraankiisana inagu soo dajiyay marka inaguna waa layna faray dhammaantiin ardaydiina qalin jabisayna ilaahay waxaan idinka baryayaa in ku noqotaan kuwii ilaahay ku anfaco ee aan guul ku gaadha guulna wax ku bara soo saara macallimiin training garaysan iyaguna macallinku markuu macallin kala sii tababaro waxbarashadan uu bartay ku sii tababaro macallinka dambena ardayda wuxuu sii gudbinayaa ardaydiisa macallinka kale uu sii gudbinayaa marka saasaa la isu weydaarsanayaa insha allah dhammaan dadka ka soo qayb galay waxaan idin leeyahay guul iyo gobonimaan ilaahay idinka rajaynayaa culimada way noo sii ducayn doonaan insha allah ducadooda waad maqli doontaan dhammaantood ilaahay waxaan inooga bariyay dhammaantood kuwii camalka wanaagsan isfara inaynu noqono insha allah wabilaahi tawfiiq ismaqal dambe wanaagsan Yes, it comes with a vegetable. هاد سومالي ميكا سعيدو بيلوغو waa soo moolkaas buugga laftirkiisa waxaa soo saaray macallimiinta wax dhigta waxay soo saareen dadka yaryar garaadso intaanad guursan maasha allah dadka reer kale xataa waa anfacaya maasha allah lagama sheekayn karo maasha allah buugaag caaqiibo leh
maasha allah kana ii dhow buuggani aada iyo aada buu qiimo badan yahay garaadsa intaanad guursan waa buug loogu talagalay dadka reeraha leh dhallinyarada maasha allah dhammaantood maanta culimadii macallimiintii maasha allah looma kala hadhin ilaahay ha idin barakeeyo runtii aada iyo aad bay buugagtan buuggani u qiimo badan yahay waa la iibinayaa qofkii doonaya waan usoo diri karnaa in online buu ka dalban karaa shahaadadihii waa laysa siiyey maasha allah ilaahay ha inoo barakeeyo maasha allah lama koobi karo qiimaha halkan ku naba